السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaan idinku salaamay salaanta islaamka bacda salaan. Maxay ahayd Ethiopia aan maqlay maanta iyadoo la leeyahay maamulka Ethiopia raacay. Ethiopia la raacay oo mid xagga joogta. Iyada waa burburtay Ethiopia. Maxay ahayd boqol qabaayil intaas oo qabaayil baa diga. Intaas oo sanjidood baa diga. dagaalkii wuxuu xumaa ka dhex socday imka hadda waa ogtiina muddo dhowr sano dagaal baa ka soconayay. iyadoo baabaaday baaba ku jirtay khatar meel nabada caasimada ba ka jirtaan malaynaya marka Ethiopia leedin wal raacaya horta ma baa yaqaanaan ugu moogi ma baa midaan garanayo Ethiopia sheegaysaan waxa Ethiopia raacayana oo wadankiisa inta ka tago Ethiopia gaala oo waxay yihiin ba intooda badan aan la garanayn in raacayso doonaysa ma jirto kuwa ay naga haysteen runaansay naga soo deyn lahayn waan leeyahay falowgeed hal la qabto shii wada loo xoreyn lahaa Soomaaliyeed oo halka Ethiopia joogto Ethiopia kamid ah maxay waa sicid kala raacdo ciidana gumaysi marto nin wali wadankiisa macaan u jecel yahay laakiin dadku waxay u baahan yihiin amaan iyo horumar way baahan yihiin horumar iyo amaan midna wadankii kuma haysan dadkii maxay ahayd xukuumadii meesha joogtay federaalka ahaydna iyaga way shaqo ka dhigatay markay dunida kharaabisa meel walba markay kharaabisa ay ku leedahay maamul baa inta raacaya ama maamul baa inta maamul haduu meel taway haduu inta raacaya hadii kaleba adaa wadanka kharaabiye xasan waan leeyahay anigu umada kala diray kuwa Ethiopia raacaysan ma jirtay kuwa Ethiopia danta bidaya oo islaamniga diin ilaalinaya maxay ahayd duruufa ku kalifaysa dawladoodu waa ku filaan weyday oo khaladay istoorkii wixii xayiraamada kala bedelay ummadii Soomaaliyeed bay kala direen marka xumaantii iyagu ay lahaayeen dadkan waa maamul la hoose dadka madaxda u ahoo dowladda federaalka u sareeyo jooga magaalada Muqdisho baa la rabay wixii khaldan ay hagaajiyaan oo si maslaxada wanaag ku jiro u dajiyaan hawsha oo ummadda Soomaaliyeed waxay tabanayaan ay hagaajiyaan waxay ka qaban karaan ka qabtaan waxay aanay awood u lahayn ciido weydiin mayso wixii ay awood u leeyihiin ka qaban karaan inay ka qabtaan bay ahayd laakiin iyaga yiraahdaan intaas waxay doonaan ku sameeyaan hadhow yiraahdaan Ethiopia ka raacayaan hal qabto oo meesha dawladda kale la keeno waxa weeyaan arrin khatar ah waa arrin khatarteeda leh in dawlad kale la keeno imka Ethiopia isku dhacsan yihiin haddii imka labada dawladood oo meesha ku dagaalamaan soo khasaare ma wadanka Soomaaliyeed dadka ummadda Soomaaliyeed gaaraya ma saarin dagaal qaadi lahayd markay wadankeedii maxay ahayd bii laga jaray maxay u qaadi weyday maslaxada dadkeedii qaadi weyday iyo wadankeeda burburo marka xasan oo in wadanka aad ka dhigto garoonka badeedo saa lagu ciyaaro adaa mas'uuliyadda aad qaadaya waxba dadka maamulada damiga saar hadday cid jeclaadaan iyo haddana cid jeclaan ama Ethiopia jeclaadaan wax doonayaan jeclaadeen maslaxadoodii ka dhaxarkay maadaama ay haysan dawlad hagaagsan wuxuu qabanaysaa ama dantooda eegaysa wanaag ku eegaysa xumaan weeyaan xumaana ku egtaan weeyaan wanaag ku egtaan marka waxaan leenahay wadanku way haystay markii hore dawladda hore joogtay ummadda Soomaaliyeed mid qoray ahayd mid qoray iyadoo noqonaysa baba la soo dhex galay marka waxaan leeyahay xasan oo xaaladda hagaaji maxay ahayd xaalka dajiye wax ka soo Soomaaliya ka xumaada xaggina ka xumaatay ummadda la isu keenan leeyahay la isu soo cesho Ethiopia wax la yiraahdo minka ma jiraan waa baabaaday ummadda isu keenan waan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh